السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيال ميل كاستو دنيا كجوجتان كسر هذا تضوات كيو برنامج كيني قبريالك أها أفلامتا هندية يلا يابك وحنا سوق عرض دونا وحيابي يابك بدنا تضوات كالدنيا كنعي والله يابك الدنيا كصعبسن كورونا فيروس يصيد اللي جاي يابي هاي مقدشو اللي جاي يابي هاي سومالي دو سوى اللي جاي يابي هايو وار سومالي شبكو تشتا بلوكيته وحدي كترين معنوه سومالي شبكو تشتا بلوكيته وحدي كترين وحلا لجيدا وار كورونا وجهي اسكتشي جوجا كورونا وجهي iska jira shub ku tasho dhismaha guriga shubkiisa markuu kugu soo dhaco aad ku tashato hadhow muxuu ka tareeyaa dhagax yar bulkeeti la soo tuuro wax ma ka tareeyo macnaha waa gurigan shubkiisa baad ku tashatay moogtahay inuu kugu soo kordhaco waa shubad ku tashatay bulkeeti la soo tuuro muxuu ka tareeyaa marka wax ma ka tareeyo marka shub ku tashta inuu geedkan coronavirus jiro bulkeetiyan wax ka tareeyin marka lagu leeyahay waxay ka dhigan tahay hadhow waada dhayn arma u maleynaynin aflaamtii iyo la yaabkii toddobaadka iyo qodobo kale muhiimsan ayaan ku soo qaadan doonaa aflaamtii aniga qadar la socodsiinaya barnaamijku bal mar kale iyo toddobaadka iyo la yaabka ciyaaraha ciidamada ku tuura channelka subscribe-ka noo saara si aad u heshaan waqti kasta iyo saacad kasta macluumaadka dunida oo ay ku jirto aflaamtii hayo bal toddobaadka iyo qaybaha la yaabka dunida iyo aflaamtii hadaynu eegnana la yaabka dunida iyo aflaamtu baan caawa eegi doonaa iyo waxyaabaha iyana ugu waaweyn qaybihii ciyaaraha inta ku koobnay waana toddobaadka iyo barnaamijkeena isbuuclaha ee aad Goal FM kala socotaan toddobaad kasta waana la yaabka iyo ciyaaraha iyo waxyaabaha dunida ka dhacaya bariyahan coronavirus baa adduunkii galay ilaahay geedka xana mootiyay wax weeyaan niyo geedkaas geed shub weeyaan wariyaha qof walba shub ku tasho waxa la yiri banaankiis marow maradiisu geed ma qabsato maxna waxa weeyaan Soomaalidu wadad madax adag baa lagu tilmaamay geedkii dhama ee adduunka waalaya ee dadka u dhimanayaan ee dadka wareerinaya walbaarka ku ridaya u baaba'ayaan aas wadareed loo sameeyay Soomaali wali waxay taagan yihiin arka taayaqay argeedkaas macnaha wax bala ma jiraan no geedka waa jiraa tala saarashadu ilaahay wax ka fiican ma jirto in qofka ilaahay tala saarto ilaahay weyneeyo ilaahay ma taqaana xilligan adag ilaahay weydiisto ka gudbiyo wax haystaa xilli fiican ad wax haystaa xilli fiican baad haystaaba waxa haysataa islaamnimo in micnuhu ilaahay aad bari karto cibaadeysan karto weydiisan karto wax walba lagu daray taladii adiga shubaba tahayba coronavirus adi si fiican kaga adkaan kartaa waa marka talooyinka aad qaadato rabbina ku xirnaato cibaadadaadii iyo alla barigaagii aad samayso wax weyn la culaaska ka qaadaya marka geedka waa laga yaabay haye warni walba uu ku tasho Soomaaliya hadda waxa la leeyahay 10 bay sii maraysaa 9 cusub oo kale ayaa la diiwaan galiyay wadankii laga diiwaan galiyay Muqdisho marka xaalku waa allow sahal marka waxaan maqli jiray habar xaliimo dhahaysa banaankiis marow maradiisu geed ba qabsato banaankiis marow coronavirus isma qabtaan hay marada geed ma qabsanaysa dad banaankaas marto maxaa adigu geedaha maxaa ka doonay macnaha adigu geedaha maxaa ka doonaysaa caawa dhan geedaha ugu sanbarixyoonaysa maanta dhan isu xoqaysa no banaankaas mar geedka maxaa ugu xoqanay maanta dhan coronavirus waa sida ka iska jir in kasta aragta geedka in la iska ilaaliyo haddana wali waa lagaga baahan inaad naftaadu ugu dadaashaa fursadda kaliya haysato waa intaan kugu dhicin geedka kan ya daawo malahan mareykan wuxuu yiri arkaniga malaarida ma fiirnayna arkaniga malaarida ku fiirnayna taagayin daawo waa loo laahay geedka marka fursadda kaliya haysato waxa weeyaan ama daawada kaliya haysato waxay tahay taqaana waa inaad ka digtoonaataa marka ilaahay maskiin baan nahayo waxa weeye ilaahay dhinaca naga mariyo bariyaha liinaanti marka adduunku aad baa loo wada li Soomaaliya marka laga hadlo liinaantu ayaa bariyahan aad loo hadalhayaa balse waxa uu liinaantu waxba ka ma celin karto balse difaacu jirkaaga ay muhiim u tahay liinaantu sidoo guud ahaan waa vitamin C laakiin ma daawo cilmi baaris lagu sameeyay oo duraysa cudurkan balse waxay caawin kartaa waa inay qayb ka tahay waxyaabaha difaaca jirka bariyahan ninkii jirkiisu difaaci karo un bayaa difaaca jirka ugu xiran tar u leeyahay markaas bay qoliya caatada waxay dheema taqaana ayaa anaga caataan ba iska nahay goorman wax difaaci karna markaas qoliya buurna soo bada waxay yiraahdeen yes anagu waan iska celi karnaa viruska maxay anagu shubaan nahay no caato iyo cayilba labaduba markii lagu yimaado waxa weeyaan waqtiga marka la gaaro iska waxa weeyaan laba qaban kar mid tahay balse liinaantu bariyahan vitamin C lagu sheegayo difaaca xoogaa jirka u wanaagsan tahay geedka cabar waa iska celinaysaa wariya kaarano war maxaad rabtaa no gadaal noqo dib u noqo waad iska dhihi kartaa laakiin muhiimadda weyn waxay tahay inaad talooyinka caafimaad ila sheegayo qaadato in gacmuhu aad ilaaliso indhuhu aadan saarin qofaaca dadku marka wax qabtana aadan dadku dhex galin dadka wada haligin
marka leeyahay baryahan waa laga yaabay aw Mareykan iyo xataa ninka la yiraahdo iyo Shiine waa isku kacsan yahay oo WHO way ku dhex dhimatay baa leeyahay WHO waa hay'adda caafimaadka dunidu way ku dhex dhimatay baa leeyahay labada quwad ee Shiinaha iyo Mareykanka Donald Trump wuxuu yiri ma taqaana okay WHO Shiinaha waad caawinaysaan garab fiican baad siinaysaan anuna dadkayga waa baabacaya marka sanad hay'adda caafimaadka ku tiimo dhaqaalaha idin sii jiray waan idinka jarnayaa uu ku hanjabay Mareykanka wuxuu ku hanjabay dhaqaalihii uu sii jiray inuu hadda ka jaranayo wuxuu leeyahay marka madaxa hay'adda caafimaadka adduunka oo hadlay wuxuu leeyahay wariya geediyaan siyaasad laga dhigin annaga cid aan gooni aan u taageerina ma jirto baa Donald Trump marka Trump wuxuu aaminsan yahay hay'adda caafimaadka inay Shiinaha u janjeerto ilaan Shiinu waa ka hawliisa qabsaday baryahan in laga gaab in yaryar kaasa arkuwaasa baryahan Wuhan oo halkii geedu ka soo bilaawatay xataa halku fayraska ka soo bilowday todobaadka meel aad baa lagu soo laabanay marka Mareykanka wuxuu taagan yahay waan ku arkaa geedkan dhaxdhaxaad kama tidbaa leeyahay fayraskan soo yimaada coronavirus WHO dhaxdhaxaad nooma tidbaa leeyahay kabtaadu waa gashanayna waxaan og yahay Mareykanka in dhaqaalaha ugu badan iyagu ay dhiibaan ee hay'addan laakiin laba goor miyuu kugu dhici karaa fayraska kan ma ahan kan kaduudiyowgii oo kala ma ahan baa lagu leeyahay haddana kaduudiyow mar dhaxdaa bay ku dhacay waxay ahayd 2004 ugu dhacay shantii maalin dhaweyd buu 2019 hadda dhaweyd ayuu meelaha wareegay maxaa la kaduudiyow anu waxaan iri war 2004 ugu dhacay geedka migu soo laabanayo sidii baan dhacday migu soo laaban macnuhu kaduudiyowga Soomaalidu waxay yiraahdaan qofku markuu dhac kuuma soo laabanayo kanuse corona comeback ayuu leeyahay kugu soo laabanaya comeback buu leeyahay laba goor kugu dhici kara uu leeyahay waxa la ogaaday hadda la ogaaday boqolkiiba 14 bukaanada laga daweeyo cudurka kan inuu dib ugu soo laabtay marka adi waay markaad soo fiicnaato waxa dhahdaa yes waa ka soo badbaad intaas ku tiraahdo ee still comeback buu kugu sameeynaya at weer degdeg buu leeyahay iska jir geedka ka marka coronavirus waxa la tilmaamaya xataa inuu comeback leeyahay ma ahan kaduudiyowgii nasiixin jiray ma aha anu 2005 ugu dambeysay geedka kuma soo laaban kalsooniyaan ka qabin inuu ugu dhicin maalin dhaweyd markuu meelaha marmaray balse corona sida ma ahan baa lagu leeyahay asagu sama loo dhintaa coronavirus waa wax iska cad waa ka adduunka u baaba'ayaan balse waxa lagu leeyahay halistiisa ugu badan yay tahay odayaasha iyo dadka xanuunada kala duwan qaba waxay u badan tahay inay u dhintaan haddii coronavirus ku dhaco qiyaasta hadda laga helayo macadka Imperial College London heerka dhimashadu waxay 10 laab ka badan tahay dadka ay da'dooda ka weyn tahay 8 sano waxayna ku yar tahay kuwa da'dooda ka hooseysa 4 sano marka qiimaynta ugu dambaysa waxa la leeyahay dadka da'dooda ka weyn tahay 8 sano geedkan waa halifo u qaadaya balse 40 sano kuwa ka yar way yararooyihiin oo yacni ma badna la taliyo caafimaadka Britain dawladdu Cheris White wuxuu sheegay in kasto kiisasku ay ku badan yihiin duqeydu haddana intooda badan kiisaska lagu arkay waa kuwa caadi ah balse wuxuu leeyahay dhalinyaradu waa inay is ilaaliyaan maxay waxa jirtu leeyahay dhalinyaradu ku dhaca geedkan laakiin cabaar uu ceejiyay baa jirta la leeyahay marka dhalinyaradu waa loo digayaa balse dadka xanuunada dadka waaweyn ee haddana xanuunada kala qaba aad buu ugu daran yahay baa la yiraahdaa ka waa kaayo hadda Mareykanka qudhiisu baryahan dadka waxa weeyaan hal mar baa la wada dhaafsiinaya godka lagu wada xaaqaya oo waxa loo sameeynaya xabaal wadareed dhimashadii baa aad u fara badatay balse Mareykanka waa laga yaabay waxa leeyahay war dadka madow sabax u dhimanayaan baryahan waxa leeyahay Mareykanka waa lagu kala qaybsanaa iyadoo markii hore lagu kala qaybsanaan jiray siyaasad dadka madow iyo dadka cadaanka ee Mareykanka u dhashay waxa leeyahay dadka ugu badan ee dhimanaya Mareykanka waa dadka madow baa leeyahay maxay tahay howlahaas baa leeyahay Mareykanka kuwa madow ha iska siibtaan baad leedihiin baa leeyahay kuwa cadaankana ha loo cimaamado hawshooda ha la adkeeyo oo ha lagu dadaalo caafimaadkoodu Mareykanka dagaal baa ka jira leeyahay ku aadan waxa dhimanaya dad aragtirada dad ee dhimanaya ugu badan Mareykanka waa madow waa lagu leeyahay dadka madowga Mareykanka u dhashay baa aad u baaba'aya waa warbixinada ugu dambeeyay laga helay Mareykanka marka cadaanka iyo madowgu geedku madowgu ku badan yahay macnuhu waxa la dareemayaa dawladda Trump inuu leeyihiin war madowga ha iska baxo cadku ha yeero ha joogo oo geedku aanu si dhow ugu ilaalino yaani dadaal fiican waxa la siinayaa kuwa cadaanka kuwan waa iska yar Afrika waxa weeyaan ayba aflaamtiisa todobaadka kan David Doll wuxuu leeyahay aad waxaan ugu faraxsanahay canugeygu inuu Hindiya ugu soo laabto wuxuu cunugiisa ku noolaa Mareykanka laakiin wuxuu leeyahay intaanu Hindiya bandow la gelin waxaan ku faraxsanahay wiilkayga maanta inuu guriga ii joogo leeyahay David Doll wuxuu dhalay wiil lagu magacaabo waa wiilkan lagu magacaabo Aryaman buu dhalayo marka maadaama COVID-19 uu jiro Baby wuxuu aad ugu faraxsan yahay inuu nasiib badan yahay maadaama cunugiisu dib ugu soo laabtay Hindiya haddana uu wadankii la joogo dhan kalena todobaadka waxaa loo dabaaldegayaa ama Hindiya looga dhex dabaaldegayaa 20 sano guuridii ka soo wareegtay filimkii shactirada badnaa ee Harry Behari oo shactira badnaayo 20 sano ayaa laga joogaa filimka markuu soo baxay lagu leeyahay waxaana filimka jiray aktara waaweyn uu ku jiray
Shay Kumar Akshay Kumar iyo Sunil Shetty iyo ninka lagu magacaabo Barish Rawal ay Soomaalidu taqaan oo Sabuka iyo ayaa jiray filimka marka 20 sano kadib filimka maanta waa loo dabaaldegaya waxa kale oo jira todobaadkan aflaamta Hindiga gabadha u dhalay actorka weyn ee Jackie Banda gabadhiisu hadda filimada jee actoradii hore ilmahoodii waa hadda filimada jira waana Ananya Bandey waa gabadha Ananya Bandey waxay aad ugu faraxsan tahay sanad guurada filimkii aabaheed iyo actor Govind ay wadeen filimka magaciisu la yiraahdo Anqayn filimkaas oo hadda laga joogo markuu soo baxay muddo 27 sano filimkan wuxuu soo baxay April 1993 buu soo baxayo waa 5 sano ka hor intay dhalan gabadhan hadda atrishada ah ee Ananya Bandey marka waxay baraha bulshada kula dabaaldegaysay 27 sano kadib filimkii aabaheed Jackie Banda iyo Govind ay wadeen ee Anqayn todobaadka sidoo kale aflaamta Hindiga waxyaabo weyn waxa kamid ah actorka caanka Abhishek Bachchan ayaa todobaadkan ka sheekeeyay sidoo ugu dhex dhiban yahay hooyadii Jaya iyo xaaskiisa Ashwariya wuxuu leeyahay way isla jiraan marka anigu bay ii tashtaan buu leeyahay hooyaday macnaheedu wuxuu cadeynayaa in gabadha uu isagu qabo iyo hooyadii ay aad isugu fiican yihiin Jaya Bachchan ayaa todobaadka xataa waxay noqotay waa xaaska Amitabh Bachchan 72 sano jir bay noqotay Jaya Bachchan 72 sano jir bay noqotay marka actorka wuxuu leeyahay xaaskeyga Ashwariya iyo hooyaday jabkeyga ay u midoobaan dhowr mar baan isku dhacnay buu leeyahay xaaskeyga balse hooyaday xaaskeyga bay la jiraysay buu leeyahay marka wuxuu cadeynayaa Aish iyo hooyadii inay aad isugu fiican yihiin oo yacni aanu buuq wax ka dhex taagnayn marka waa kaayo Kanika Kapoor waxay gabadhii ugu horeysay actorad Hindiya ama fanaanad ah ee laga soo sheego COVID-19 balse hadda waxa la ogaaday markii la karantiinay in gabadha dhowr mar oo laga tijaabiyo geedku negative ay noqotay gabadha cisbitaal ku jirtay ayaa ugu dambeyntii hadda cisbitaal ka baxday baa la leeyahay todobaadka iyo barnaamijkeedii la yaabka ciyaaraha iyo aflaamtii waanu inta ku gabagabeynayna anigoo qodobada la socodsiinay farsameynayay asxaabay todobaad kale inta ku kulmi doona insha Allah waxaan kaga tageynaa sidaa nabadgelyo